الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحوسيي وحلا يراهدو بديع الكلام، هذا الكيس أخرح بدن وجوامع الوصايا يوحوسي دردارا أو وحياو بدن كلن صناي. هذا الكيس النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الدوكو هذلو waxay u dhigmi jirtay intaasoo hadal maxaa yeelay jawaamicul kalim ayaa la siiyey. nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta waxaan dul istaagaynaa dardaaran gaaban oo saddex qodob ka kooban. saddexdaas qodob haddaan sameynana adduunya aakhira aan ku liibaanayno. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa u yimid nin, xadiiskan waxaa warinaya abi ayub al-ansari, imaam ahmed iyo sunan ibn maajah ay ku yaalaan, waa xadiis xasan ah. abi ayub al-ansari wuxuu yiri nin baa u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam, markaasuu wuxuu yiri ninkii rasuul allah wax ii sheeg ii wacdi iina soo koob war badan marow, ama wuxuu yiri callimnii oo awjis wax ibar wax badanna marabo ii soo koob wax yar oo wax badan noqonayaan rabaa. فقال عليه الصلاة والسلام نبي وحويري إذا قمت في صلاتك سدح أرنو أشاي مرك وحويري إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. صلاة مركا وإستاجي سوء أو أتكن ربطو وحد تكتاء ونبي صلى الله عليه وسلم صلاة دي كوجدن بيسي مد أحقاك الأدكو waxaad ka dhigtaa salaadan aad tukanaysid sidii midii ugu dambeysay ah, tan salaad ma ka dambeeso qurxi wanaaji. walaa takallam bikalaamin tactadiru minhu gada, hadal ha ku hadlin oo beri aad ka qowmameynaysid ama beri aad ka shalaynaysid oo cudurdaar iyo raaligelin iyo oohin aad iskugu daraysid ha ku hadlin. hadalkaaga intuu haddaba gudaha kugu jiro, carabtu waxay dhahaan hadalka intii gudaha uu kugu jiro adaa gacanta ku haayo, adaa hoggaanka u haayo. laakiin mar haddii hadalkaas uu kaa soo baxo asaga hoggaanku uu qabanayo, marka meel aad ka bixaysid ma leh. dardaaranka saddexaad, wajmac ilya'sa mima fii yadi nnaas, dadka waxyaabaha ay haystaanna ka tag, qanaaca isbar. labada doolar ilaahay ku siiye ku qanac. ninkan oo 10,000 doolar meel kala geeyay la ha fiirinin. haddaad fiiriso waxaa ku dhowaanay inaad ku waalatid. dad badan oo aan ka saay aniga oo ku waashaa jira arrintaas, nolosha lagu ciriiriyey waxay fiirinayeen dad ay ka sareeyo. nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaas uu ka hadlay, wuxuu yiri qofka adiga ka sareeyo ha fiirinin, kan ka hooseeyo fiirin. adi maanta hadii 5 doolar ah heshay, nina 1 doolar aan haysanin, kaas daa fiiriso waa qancee. laakiin kan saarifta ku socda fiirisid oo berina fiilder ku socdo oo beri dambena qooqan ku socdo waa ku waalane, xisaaba isku dhufane, waa isla hadlay. marka ninkii waxa arkay oo fiyowa oo salaada uu tukan jiray iska daldal maayile, ha ana ficlaayano, ana fiirinaayano, ana xamanaayano, war ku jiro fiila istaabatay. nabiga ku diidi ha ka hadlin, ninka ka sareey ha fiirinin. saddexdan dardaarnaan dul istaagina. marka nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hadlay salaada markii koow aad tukanaysid, salaad walbo waxaad ka dhigtaa salaadii kugu dambeysay. tusaale ahaan xamara degan tahay, waa ka tegi rabtaa, safaraad tahay, ma ku soo laaban rabtid, dardaaran nooca bixine waa dardaarmaysaa. haddii ilmo ay kuu joogaan, ilmaha meel ku ogaanay, hooyadaada dardaarme, xaaskaaga meel fiican aad dejinay, deymaha waa iska bixine, sababtoo meeshaan ku soo laaban rabtid. salaada aad tukanaysidna waxaa ka soo qaadataa salaadii kugu dambeysay, adii ilaahay la kulankii ugu dambeeyay aad kulmaysa inay tahay. si u tukanay marka waa qurxine, rukuucda waa qurxine, sujuudda waa qurxine, hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad la hadlaysid dareenkeeda isgelinaysaa. tan labaad
النبي صلى الله عليه وسلم وحو شيغاي لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا هذا او بري اكا عذر دارنيسد حكو هدلن او عذر دارك waxa waaye ama adduunyo noqon kartaa ama aakhiro hadal inta aad ku hadlaysaa laga yaabaa in aayasto oo dambiyar inuu yahay aa umalees ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim idinka dambiga aad galaysiin waa yareysanaysiin wax yar lee waay aleeda noo sameey dhimale ilaahay agtiisna wuu ka weeyay hadalka marka intiiba afkaada uu ku jiro uusan soo bixin adiga madaxa tahay nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu la dardaarmayay mucaad muxuu yiri nabi allah dardaaran dheer u siiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu rasuul allah waxaas nabi wuxuu yiri marka mucaadow waxa soo dhan wax ka kaafiin ku sheegaa ala akhbiruka bimalaki dhalika kulli mucaad wuxuu yiri ha ii sheeg waxa soo dhan waxa iga kaafin karo nabi sallallahu alayhi wasallam arabkiisu qabtay inta qabtay wuxuu yiri kufa alayka hada kanka adkaaw كانت كاتت وحبرنا هليسا مركاسو وحير معاد وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به رسول الله أنا وحنكو هدلينو آخر من وقت صنع معاد أنا يعمل أهاي مركان صوتو أنا مبقى أهاي سنبع وحنكو هدلين آخر إن نسكو حسابنا هاي واسك حمنينا ذاتك واسك عينينا وحان ربنا نكو هدلينا قفا كو وعدنا إلهي كبقو لهاي هذا الفي عم وجوابيسيد وكو جيسيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ معاذ هو يداها كويسي وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم ذاتك وحي صلى الله عليه وسلم مركي النار تلو توراي أو وجي إلى توراي ما وحا أملا يسوحك لإنوية إلا حسائد ألسنتهم عرب كوضا وحي شقيي النار جي وحكا لما عرب كهذا بوا خطر هلسو ليه واجي مركو بريو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم مكي خفر بابن آدم واجي مركو بريو فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان حبناها جيرك أوطن عربك يلا هاد لايان معليهن اتق الله فينا عربو نقع إلهي كبق إلهي نوبق محايل أنك أذيك هدات توستوى توسينا هدا أذيك خلاعتنا وقلوعنا حبناها دم وحيلا هاد لايان عربك هلي إلالي مركي هذا المركب بري أكا عذر دارنيس أكو هدلن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفك إيمانك بطا لا يهلا وحالوية قانا وحفي عن إنه كو هدله أما إنه إسكا آمس إنت آمس أنت هاي وحبضنك بتباديسا وحال الشيء قصة عدي أو ويلا بشيء مركي أحوه سوين هذي أو حلقي هذا لقي السجاي إنه هذا لقي السجاي وسود جاري وحو أركي إلهك إلهامي مجالدي وفتنه دنبي عربكي قفل بعربكي سمال إسكا حمناي وحول بسميناي وحو قانكو جاري إنه صنحطلين بقى إنكو أخلي يستي إنه صنحطلين هو يسي أبيسي حافظ لأنه حلو يقان نقول إنه صنحطلين معلومه وحسوء دورك حق هذا shimbir wuxuu arkay geed saaran nimanna shimbirtii raadinayeen way ugaarsanayeen shimbirtii way hadashay markii jiiq ay dhaaday markii hadashay dadkii way arkeen way dileen markaas wuxuu dhahay ninkii oo dhagoolka iska dhigay wuxuu yiri hadaa aamus lahayd waa badbaadi lahayd maanta wax ku dilay afkaaga waay maalin kale wuxuu arkay nin la dilaayo nin caadi loo dilay dadkii dilayeen uu arkay markay soo jeesteen ninkaan ay arkeen meesha taagan waxay ninkaan ku nabeena markii ninkaan ku nabeen dhagool waay isdifaaci karo asagan ku nabeena asaga lagu nabay ciidankii waa qabteen maxkamadda la soo saaray wixii oo dhan asaga lagu nabay asagoo diltooda lagu xukumay uu hadlay maxkamaddii dhan way ama taagtay oo ninkaan dhagool wahay goormuu hadlay wuxuu yiri aamusitaanka inaan ku badbaadayo u maleeynaayo dhahay waa ku badbaaday laakiin hadda wuxuu yiri aamusitaankayga tiirku ii wadaa oo dhahay لما قفنا الدلين ويري أنا ما أدري ويري أنا أركي ولا أي الدليل مرك السكوت سلامة مرة هاي مرة إن هذا الشيء في عنده لكن هذا الكاجة ميزان هذا حاسس كتر احتجن النبي صلى الله عليه وسلم أنت سنودر دارمي تنس كلمات أو عرب كأ ضد بدنا وحارك صار دبعته أي وحأكينا أفكار محاول هذا الشيء أكيد إيمانه سمركي نبقى جلنا مركي هرنا يسكت المسجرين إنك استوى أنت مركي الهضلة نعيل في فيرنا ما هو أنت هذا هضلين وحلو إسكسلام نفسه دردارن كسدحات نبي صلى الله عليه وسلم محيري
dadka gacmahooda wax ku jiro oo haystaan iyo jeebkooda iyo mobeeladooda wax ku jiro faraha u qaat isiidan jooji waa lagu jeclaanaa qofku waxaa iskaga dhigtaa lacag inaa leedahay wallahi ani dad badan oo qaraabadeyda waxaa mar dibadda ka yimaadaan dadkan waa taqaaniin markii dibadda laga imaado waxay jecel yihiin in loo tago maho baahi loo sheegto oo la dhaho niyo dhibkaanaa jiro markay hadda shalay ugu dambaysay nin qaraabo aan ahay shaqadeeda igu soo booqdo waxaan iska dhigay nin lacag leh xafiiska shaqaalahanka inaan leeyahay iska dhigay xitaa wuu baxaa xagguu geynaa xagga America ama meeshuu ka imaamay ku taga muxuu dhahaa ninkiiyo waxaan soo arkay macna abuu waxaan soo arkay kaale iska arago xafiis fadhiyo mar waxad ka socoto saasa ku roon adiga meeshii laga gudbi lahaa qofka ugu horeeyay imaa isagu ahay dhibaato ii sheegtay $20 siiyay wax ma ku taree wax ma ku tarees geesi iska dhig nin lacag leh iska dhig ilaahay wuu ku sii karaa qanaaca isbar $2 jeebka ku jirto $2,000 ku noqonay laakiin berigii dhareerkaaga uu soo daato nin asayba coronavirus America soo bursaday hadaa u tagta ka waran baahida u sheegato ilaahayna wuu ku nacaa kanna waa ku nacaa CV xunuka geena Mareykankana ninkaas iska ilaali telefonkiisa ma waagi Yurub lagu cusbaajir waxa leeyahay waxa isku inkaari jiray Soomaaliya laga soo wacay bax Soomaaliya laga soo wacay inkaar waa Soomaaliya laga soo wacay baahida la sheega ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفكي إلهي تلسارته إلهي وكفلنيا أليس الله بكاف عبده سمرين الله إلهي سوء الدون بسكم فلنا ها وكفلنيا الله كو أورته كفلنيا والله لكن هدادنا أذيك كو قنع سنين إلهي محو كهربا هذا وحما كهربا لكن كو قنع ربي قال كو قنع النبي صلى الله عليه وسلم محوري من كانت الآخرة همه خفكي آخره همجيسا كدكتا آخره سأبدبادي إلهي سيئرال قليني جعل الله غناه في قلبه إلهي تاجر لماذيسا قلبه قدجيا تاجر لماذا انتوى وجمع الله شمله وحيك لدى صنان إلهي وكوكينا وأتته الدنيا وهي راغمة الدنيا أيضا سندليسا أيضا كربين ألقوكينا وتكأل لي أدونكاس إلها سو أمراي لكن ومن كانت الدنيا همه qofkii adduunyaha hamigiisa noqoto anaga oo kale waa soo kacna saaki weedoona ka imaana laga yaabo adduunyada soo raadin maaha adduunya raadin aakhiro salaada waxaan ku tukanay dukaankeena duhur iyo casr isku darnay hadhow markaa hooyanaysta maqrib isha isku dare jumlo waxa dhan baad tafaariikh ma qortidba ilaahayna jumlo ma aqbalaayo bad kormaadin sheegay ilaahay jumlo wallahi ma akhriyaba ninkii adduunya raadiye lebis aakhiro aan ka fikirin wiliga aakhiro ma ka fikirta adiga isweydii خوف اسكو ويديا وليغا اخره منارا غلي مس جنا غلي ما كفكرتي ما يمو تنا كوتالو جعل الله فقره بين عينيه الهي فقري سو دغا اندها دخدودا واغ مركو بري اندها كلا فر فقري رور هبينكي وا سو هوينا سوخدي قبيه وا رور فقري واخ كلا ماركايو باهيا جرتو غريغي بيا لا غوستي ولا غوسنا ما غريغ كو سو دماي حتى هدي الهي كو خنعيس وفرق عليه شمله وحيابه كلا داد سناينا إلهي وكلا دادنا با وعاركي وحكو توساي ملبا مشروعا بلاوي وكفشل مي قناع سيقال مكوهر مريزي مع دعي الدنيا السيسي ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له الدنيا وحوك هلا انت إلهي وطلق لبس هدي لو تنظر لو طلق لي ما انت دو ازدالسي الهي وكا حناقي صلاه متكنين مسنه سنين السلام عليكم بد استغفار ما اخرسنيسد شيطان او كلا تهي الهي انت يركو طلق لو كسينا رور انت لو طلق لي مكو بدنايو رورك هدا غابسنا انت لو طلق لي ما لغا يرينايو الهي امين سنو النبي صلى الله عليه وسلم ابو ذر ايو وحو كدحay ابو ذر ninkan taajir waa makila dhahayo hanti badi way ma oho weeri ninkan lacag u haysta makila laayar abu dhar wuxuu yiri ha rasuul allah ninka lacag duu haysta milyaneer waa illee ninka faqiir waa makila laayar lacag ma haysta way ma oho weeri sallallahu alayhi wasallam ha rasuul allah ninka faqiirka wax ma haysto nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laysa kadhalika saas ma abu dhar sewa yiri inma al-ghina ghina al-qalb taajirnimada qalbiga waa waxa arkaysa qof waxba haysanin dharkiisa qurux badan adika nuuraay
adina maanta wax walba waa haysataa ومع ذلك waxaa kugu furan welwel walbahaar sokoraa qabtaa sokorha cunin saliidi iska ilaali dhiikara qabtaa yaa laga xanaajinin meel seexo ninkaan waxaas ma qoraba bakiiri qaxwada uu cawaaya 5 qaando darsana sokor ah ma welwelsana maxaa yeelay ilaahi uu qanaaca ku qancay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri izhad fi dunya yuhibbuka an-nas adduunyada yareeso dadka ku jeclaanayaan waxay haystaan ka tag yuhibbuka Allah ilaaha ku jeclaana markii adduunya ay yareysato wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas dadka waxay haystaan faraha uga qaad waxa isbarin ba qof jeebkiisa ina cunta adiga dad qaar waxay barteen ba dad jeebkooda ina cunaanba adii haystaan xataa ma soo bixinayaan ha isbarin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi ilaahi wuxuu jecel adoonka asaka cabsanayo qalbiga taajirka ah oon isqarinaayo baahi hadda heese xitaa aan laga dareemaynin soo carfinaayo safka waad ku jiro hadda fiiriso waxa isleedahay warniyo beerta ma ku soo go'day way weydiinay adiga waxna ma haysto ilaa muuyiri kuwa qalbiga kuwa aan laga dareemaynin aghniyaa min at-ta'affuf wa isdhoorayaan ilaa muuyiri jaahilku wuxuu u maleena taajir inuu yahay ninkan oo ku qaldooma xataa marka qaarkood waxay si ku dhaahtaa adigu ku iimaanaa إلهي سبحانه وتعالى وحير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قفكي عمل في عن سمايا لب يدك فلنحيينه حياة طيبة وحن نولسينا نلول وناكسن ابن عباس نلول وناكسن وفسري وحكو فسري القناعة قلبي قال وحال قلنا قناعه وحكو قناعة حاسكا وحال يذكر حاسكو إنك قناع سنة حتى توكل قرح بدن واركا وعليه مركي أنقول سنة تنلم محو أركي باي تنقولي إيجوتان برنعيه قناعة ماله علمه سمكو قناع سنة كو قار مالك او هيستم كو قناع سنة غريغم كو قناع سنة جديد كان لابدكم بيل كان راعاي مركو راعاي اسغو حناقسن راعا وحو ربا باوركيس انو شق كو اادو شيخو علاسن كو سار maxaa ilaahay balabku ina baawrku raacay kugu tala galay dibku ku haysta maxaa sabr dharkam ku qanaac sana futashaarigan 80 door la gadaayo arka waa xanaaqsan yahay yaa xudiyuutaay qanaaca laga rabaa أبو حازم قال ويدي وحاليري ما مالك مال ميقا هيستا دي مال نوعي هيستا وحير لو مالا هيستا ودانيغا لواس مال وحيري مبك عبسنا وحير إنا كفقيرو محاواي الثقة بالله إلهك كالصون هاي أولاي مالك كوات واي وليأس مما في أيدي الناس دتك جعموه هذا نواب إسكت عافي وكخصي ولاي قفنا حيديو إلهنا كالصون هاي نقص معك هلا وحمك هلا بايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيامه بالليل خوفك شرفت سي حكو جرتا هوينك إلهي إنه استاغو وعزه شرفتي سي عزي سي حكو جرتا استغناؤه عن الناس ددك إنه كتغو وحوغا waxa intaan xadiis u qaadanayna waxay tahay waxa isku baraarujinayna ilaahay inaan ku qanacsanaano waxa daadan heesana ilaahay waa ku jeedaa nabi sallallahu alayhi wasallam gurigiisa 3 bilood dab laga shidin nabi waaye ilaaha soo doortay mala soo nacay mala soo nicin haasha lillah adduunya sala jeclaa wax ma loo waayay wax looma weynin gurigiisa biyo itimir laga cunaayay adi gurigaaga hadii biyo laga waayo ama hal waqti laga cunaayo ilaahay wuu ka warhayaa ilaahay ku qanac baahida qofka la u sheeganay انت استسلمين وليباننا ان شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن اسلم خفك الهي اسكو ديبي وليباني وكان رزقه كفافا رزقه سن الهي كدغو وحل مر لا قادناي بس كورن براشي همر لا قادناي او marka aanu naqsan karin muqanci ay muqanci suunkina furtida rabtaa nacwiis asoo gishitid dhulka furtida rabtaa ilmaha tabii loo reeyaa inta rabtaa ilaha ku deeqo إن الله يقول إلهي وحولي فيري ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى إلهي سبحانه وتعالى الله فيري إن آدم عبادتي ذا أصاب أنيقنا الله تعالى وحانجلنا تاجر نمو فخري قاقنا وكود دقولا بلن واي أني إيسو جيس عبادتي ذا يا بهاي رب العزة وإلا تفعل هدا سمين ويسو وعبادتي ذا كجيستو ملأت يدك شغلا قعمها شخانك بوحنا أذيك تنب شخانك هو مشغولنا ولم أسد فخرك قاقنا مدبولاي تنمانتنا هستوى وشقيني وادالني dad qaarata guriyada muusoo hoydaan shaqaa ii taalu leeyahay bari marka waraysato deen u raadinooyaa
ilaaha ballan qaaday maxaa yeelay cibaadada ilaaha ka jeesatay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay aniga faqri idinkaga baqaayo laakiin waxaan idinkaga baqaa adduunyo in idinku soo furo kadibna adduunyo ku tartantaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray allahumma ij'al rizqa ala muhammadin quta ilaahu rizqiga reer muhammad waxa ka dhigtaa wax hal mar la cunaayo bis keet marabo wax la dhiganayo guriga marabo maanta cunaa berina waa raadina nabi muhammad ku duceysan sallallahu alayhi wasallam abu hurayra waxa la yiri kun wara'an takun a'bad an-nas xalaal cun dadka midka ugu fiican noqonee dadka waxooda ka tag waxa noqonaysaa mid dadka ugu taajirsan warda bima qasama Allahu laka ilaahi wuxuu ku siiyay ku raali noqo waxaan soo gabagabeynaynaa saddex qofood safreen waxay heleen lacag badan ay heleen dayman ay heleen saddexdoodii safar ay ku jireen markaas waxay niyeysteen inay qaybsadaan nin ka mid ah dhahnay raashin la soo gadbax suuqa tag adiga oo ku sugeynaa ninkii suuqu aaday labadan waxay ku tashteen ninka markuu soo laabto waa dileena labadeena qaybsanayno qanaacalaan waa ku qanacsana wuxuu yani ilaahay wuxuu siiyay ku qanacsana ninkii asagana suuqa intuu ku maqnaa wuxuu yiri kuwa raashin ku dirsanno raashinka sun ugu dar marka u geesid ayaga ha cunaano labada ha dhintaano adina ku soo harto maalkan waa soo baxay raashinkii uu keenay uu soo galay madaxa ku dhufteen waa dileen ma dhimatay raashinka keenay dhaheen raashinkii ka qaateen waa cuneen labaduna waa dhinteen asagana waa dhintay maalkii cid qaadatay male sallu wa sallimu ala nabiyil mukhtar inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid warda allahumma an khulafa'ir rashidin a'immatil mahdiyyin abi bakr wa umar wa uthman wa ali warda اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من ظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم وارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله